wuxuu ahaa nin gaaban muuqaal ahaan aan soo jiidasho lahayn oo aad faqiir u ah. Magaalada Madiina waxaa ku noolaa nin aan cidi soo jaleecaynin. Haddii uu yimaado lama aqoonsan jirin, haddii uu maqnaadan idima tabi jirin, ilaa uu ismooday inaanu wax boosa ku lahayn qulubta dadka. Magaciisu wuxuu ahaa Julaybiib radiyallaahu canh. Ma uusan lahayn nasab uu ku faano iyo maaltoona, laakiin wuxuu boos weyn ku lahaa qalbiga Nabiga sallallahu calayhi wasallam. Maalin ayuu Nabiga sallallahu calayhi wasallam u yimid nin reer Ansaari ah, wuxuuna ku yidhi gabadhaada ii guuri. Ninkii aad buu u farxay, laakiin wuu ku naxay markii Nabiga sallallahu calayhi wasallam uu ku yidhi anigu naftayda uma doonayo ee waxaan u rabaa Julaybiib. Aabbihii wuu ka agajiiday, hooyadiina sidoo kale. Sidee bay gabadheena u siinaynaa ninkan faqiirka ah ayay isweydiiyeen. Laakiin gabadhii suubaneed ayaa hadal miisaan rogay kii waalidiinteeda ku tiri amarka rasuulka ilaahi sallallahu calayhi wasallam ayaad celinaysaan. Ii geeya Julaybiib, waayo rasuulka sallallahu calayhi wasallam idayici maayo ayay ku tiri. Julaybiib waa uu guursaday, laakiin kuma uusan raaxaysan guurkiisa wakhti dheer. Waxaa yeedhay dhawaaqii jihaadka, wuxuuna ka tegay aroosadiisii isagoo raadinaya waxa uu haysto wax ka qaalisan. Dagaalkii markuu dhammaaday, Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu asxaabtiisii weydiiyey cidima weydeen. Waxay tiriyeen magacyo badan, hebel iyo hebel iyo hebel. Markaasuu Nabiga sallallahu calayhi wasallam uu ku yidhi cod muruga ka buuxdo ku yidhi, laakiin anigu waxaan tabayaa Julaybiib. Nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaa naf ahaantiisii ka raadiyey goobtii dagaalka, wuxuuna helay isagoo shahiid ah, hareerihiisuna ay yaalaan 7 gaalo oo uu dilay ka hor inta aanu isaga la dilin. Nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaa dul istaagay, wuxuuna ku eegay indho jecel iyo ilmo ka buuxaan, isagoona yidhi eraygiisii taariikhiga ahaa 7 ayuu dilay, kadib waa la dilay, kana anigu iga mid yahay, aniguna isaga ayaan ka mid ahay. Kadib waxaa dhacay muuqaal qalbiyada taabtay markii qabrigii loo qoday. Maadaama aan Julaybiib loo helin naxash lagu qaado, waxaa naxash looga dhigay gacmaha rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Nabiga ayaa gacmihiisii sharafta leh ku qaaday oo qabriga dhigay, isagoo leh Allahayow waan ka raali noqday, adigana raalli ka ahaw oo ka raali noqo. Julaybiib wuu dhintay isagoo aan haysanin kafan iyo magactoona, laakiin wuxuu helay billad uu mu'min walba rajaynayo. Walaal, quruxda ma ahaan muuqaalka, qiimuhuna ma ahaan aragtida dadka. Qiimaha dhabta ahi waa in Alle subxaanahu wa tacaala uu ku garanayo oo rasuulka sallallahu calayhi wasallamna uu ku jecel yahay. Miisaanka samaduna ma ahaan imisaad haysataa, ee waa imisu Alle subxaanahu wa tacaala uu ku jecel yahay. Sidaas ayuuna ahaa Julaybiib. Wuxuu noolaa isagoo qariib ah, wuxuuna dhintay isagoo xabiib ah, la jecel yahay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala hanaga mid yeelo kuwa uu jecel yahay. Ramadaantana nabad iyo caafimaad Ilaahay ha nooga dhammeeyo. Soonkeena, salaadeena, sadaqadeena Ilaahay subxaanahu wa tacaala hanaga wada aqbalo. Soonkana nabad iyo caafimaad iyo barwaaqo Ilaahay ha nooga wada dhammeeyo. Soonkan soonkiisa kalena Ilaahay nabad iyo caafimaad iyo barwaaqo Ilaahay ha nagu wada gaarsiiyo. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, adigana nagu soo biir. Haddii aad hore inoola joogtayna inoo laagaray. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.